waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah guddiga doorashada baarlamaanka federaalka oo soo saareen qodob ay ku kala cadeeyeen ammaanka maalinta doorashada madaxweynaha iyo ciidamada ADMIS oo la wareegayaan amniga madaxweynaha cusub ee la dooran doono faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan xogta kulan dhaxmare Xasan Sheekh iyo lafta gareen waarana waxa uu ka digay qorshaha musharax Xasan Cali Qeere iyo qaybta dambe warkeena waad ku daawad doontaan maxaad ka ogtahay daawada musharaxiin dhowr ah oo aan laga filaynin oo iskaga hareen tartanka musharaxnimada madaxweynaha Soomaaliya qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka dalka TV Media fadlan daawada hadda nagu cusubtaan ugu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiinana halka hoos noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo dhiirigelin haatana ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan guddiga doorashada baarlamaanka federaalka ayaa soo saareen qodobo ay ku kala cadeeyeen ammaanka maalinta doorashada ciidamo ka tirsan kuwa ADMISna waxaa loo diyaariyay inay la wareegaan amniga madaxweynaha cusub ee la dooran doono guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo saareen war saxaafadeed ay ku faahfaahiyeen ciidda loo xilsaaray mas'uuliyadda ammaanka goobta doorashada iyo doorka ay ku yeelan karaan ciidanka qaranka qodobka koowaad ee warqadda guddiga ayaa lagu cadeeyay in taliyaha booliska Soomaaliyeed uu yahay hogaamiyaha guud ee amniga doorashada halka amniga irdaha laga galo teendhada afasione iyo gudaha xarunta ay mas'uul ka yihiin ciidanka ADMIS nabad sugidda iyo militariga ayaana loo sheegay inay adkeeyaan oo mas'uul ay ka yihiin amniga gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho oo doorashadoodu ay ka dhaceyso waxaana si gaara nabad sugidda loo faray inay fashiliyaan haddii ay jiraan dagaaro loo maleegay doorashada 24 askari oo ka tirsan booliska Soomaaliyeed kuwaas oo aan hubeysnayn ayaana gudaha hoolka doorashada kala shaqeyn doonaan ciidanka ADMIS sida lagu cadeeyay bayaanka guddiga sidoo kale ciidanka militariga oo qayb ka degan teendhada afasione ayaa si ku meel gaara looga rarayaa xarunta teendhada inta doorashada lagu guda jiro sidoo kale qodobadan ayaa lagu yiri ADMIS oo raacaysa awaamiirta guddoonka ma ogolaanayso in waxba lala galo xaalane maalinta doorashada qodobada kale ugu muhiimsan ee warbixintooda ku sheegeen ayaa waxaa kamid ah in maalinta doorashada madaxweynaha la ogoleen in lala galo teendhada telefoon ama tablet kasoo qaybgalayaasha ayaana la sheegay in lagula talinayo inay teleefanadooda uga soo tagaan banaanka oo ay darowladooda usoo dhiibtaan qodobadan oo dhowr qayb ka koobnaayeen ayaana waxaa sidoo kale kamid ahaa in musharaxa ku guuleysta xafiiska madaxweynaha dalka Soomaaliya isla markiiba amnigiisa la wareegayaan ADMIS waxaana loo qaadayaa baaliyiri meel amnigeeda sugan yahay taas oo ka dhigan in ciidanka ADMIS ee howlgalka midowga Afrika AMISOM ay sugi doonaan amniga musharaxa waqtigaasi ku guuleysta xilka madaxweynaha Soomaaliya si kastaba arrintan ayaa imaanaysa xilli saacadii aanu ka soo gudubnay siyaabooyin kala duwan loo falanqeeyay arrimaha la xiriira sababta keentay in ciidamada ADMIS loo gacan geliyo ammaanka goobta doorashadu ay ka dhaceyso si kastaba guddiga ayaa haatan waxa ay qodobadooda ugu dambeeyay ku kala cadeeyeen qaabkay u kala leeyihiin ciidanka qaranka Soomaaliya iyo kuwa ADMIS ammaanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya geesta kalena faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan xogta kulan dhaxmare Xasan Sheekh iyo lafta gareen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku booqday hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen labada mas'uul ayaana kulankooda ahaa mid isxog wareysi ah oo la xiriira arrimaha doorashada madaxweynaha iyadoona kulankan goobjoog ay ka ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka cusub ka tirsan oo laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed maadaama koonfur galbeed ay kamid tahay maamulada xildhibaanada ugu badan laga soo doorto ayaa Xasan Sheekh waxa uu ka codsaday Cabdicasiis lafta gareen sidii uu qayb uga noqon lahaa isbedelka socda iyo inuu taageero ololihiisa dib u doorashada waxaa la ogyahay in lafta gareen iyo farmaajo ay isku xiran yihiin siyaasad ahaan isla markaasna lafta gareen uu ka shaqeynayay muddooyinkii la soo dhaafay in dib loo doorto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
si kastaba waxaa jirta rajo ah in lafta gareen ka fakari karo qorshaha labaad haddii uu farmaajo soo dhaafi waayo wareega koowaad waxaana fursada ugu weyn u noqon karta xasan sheekh waa haddii uu fikirkaas ku dhaqaaqo. lafta gareen ayaa la rumaysan yahay inuu ka walaacsan yahay in sheekh shariif uu ku guuleysto doorashada sababtoo ah wuxuu xulafo la yahay gudoomiye aadan madoobe iyo siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda koonfur galbeed. si kastaba doorashada madaxweynaha ayaa ilgaara lagu hayaa musharaxiinta qaar ayaana wadaan dadaalo ay kusoo kala jiidanayaan xildhibaanada iyo madaxda dowlad goboleedyada qaar oo gacanta ku haya tiro xildhibaanaha. dhinaca kalena waare waxa uu ka digay qorshaha musharax xasan cali kheyre. madaxweynihii hore ee hirshabelle maxamed cabdi waare oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa ugu horeyn fariin dardaaran ah oo doorashada la xiriirta u diray xildhibaanada Soomaaliya isagoona weeraray siyaasadaha madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre. waare oo wareysi gaara bixinayay ayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dalka codadkooda ku badbaadiyaan maanta war xildhibaanow iyo lagugu mashquulin dareertada iyo waxyaabaha beenta ah ee maalmaha doorashada ee dalkan si mustaqbalkiisa loo badbaadiyo wado fiican noo saara ayuu yiri waare. waayahan waxaan arkaa farmaajo iyo kheyre oo la kala wado war farmaajo waa kheyrena waa farmaajo cid kala saari karta ma jirto raggaasi ilaahay hana dhaafiyo labadaas ayuu hadalkiisa kusii daray madaxweynihii hore ee hirshabelle. wuxuuna intaasi kusii daray in gaboodfallada iyo talaxumadii uu ku sifoobay xukunkii farmaajo uu kheyre leeyahay eedda ugu badan maadaama uu ahaa madaxii xukuumadda. sidoo kalena markii uu kheyre kusoo biiray golihii midooda musharaxiinta ayuu waare sheegay inuu aada uga xumaaday. midooda musharaxiinta markii ay aqbaleen in kheyre uu kusoo biiro waxay direen fariin ah farmaajo waxaan ula dirinaynaa arrimo qabiil iyo kursiga. waxyaabaha qaar ee hadda farmaajo loo haysto waxaa geystay xasan cali kheyre ayuuna yiri waare. maxamed cabdi waare oo hadalkiisa sii watay ayaana ilaahay ka baryay in 5 sano ee farmaajo soo xukumaya Soomaaliya uusan noogu darin 4 sano oo xasan cali kheyre ah isagoo yiri naxariista alle kama aanan rajo dhigin. si kastaba oo aan isku dulminay Soomaaliya maanta ma qaadi karto talaxumada kheyre ee allowna dhaafi ayuu yiri maxamed cabdi waare oo wareysi gaara bixinayay. waa hagaagi daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa musharaxiin aan laga filaynin ayaa iskaga hareen tartanka madaxweynaha Soomaaliya iyadoo maanta ay bilaabatay khudbad jeedinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya oo tiro ahaan gaarayaan 39 musharax ayaa haddana dhinaca kale waxaa jiraan musharaxiin dhowr ah oo aan laga filaynin inay tartanka ka hari doonaan oo qaarkood ku dhawaaqeen inay musharaxnimadooda ka tanaasuleen. musharaxiintan oo qaarkood muddo dheer wadeen kana mid ahaayeen midooda musharaxiinta laakiin waxay markii ugu dambeysay go'aansadeen inay ka haraan tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya sababo kala duwan dartooda. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq maxamed ayaa shaaciyay inuu iskaga haray tartanka doorashada madaxweynaha wuxuuna muuqaal uu soo duuba ku sheegay inuu go'aansaday inuu iskaga haro tartanka doorashada. waxaa kaloo shaaciyay inuu musharaxnimadii xilka madaxweynaha iskaga haray cabdi muuse maaxay oo in muddo ahba baraha bulshada ka ololeynaya wuxuuna muuqaal uu soo duuba ku sheegay inuu go'aansaday inuu ka haro doorashada madaxweynaha isagoo sugi doono doorasho qof iyo coda. musharaxa kale ee xabiib yaasiin warsame ayaana isna shaaciyay inuu iskaga haray tartanka doorashada madaxweynaha ee sanadkan. waxaa kaloo jira musharaxiin aan isdiiwaan gelin oo ka gaabsadeen inay ka hadlaan doorashada. musharaxiin hore u shaaciyeen inay xilkan u taagan yihiin ee aan wax go'aan laga heynin kana hareen tartanka doorashada waxaa ka mid ah Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, Mustafa Cabdi Dhuxulow iyo Xuseen Cabdi Xalane. musharaxii baraha bulshada ee ku caanbaxay musharaxa burka ayaana sheegay inay lacag la-aan hayso lacagtii uu ku tashanayana ay ka xayiran tahay taasina aysan u suuragelinaynin inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha waxaana uu ahaa musharax lagu aadeysto. sidoo kale qaar badan oo kamid ahaayeen xubnaha midooda musharaxiinta ayaa laga waayay liiska xubnaha isku soo sharaxay xilka madaxweynaha. xubnaha ugu cadcad waxaa kaloo kamid ah Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya horena uu soo noqday gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. inkastoo Shariif Xasan uusan isku soo sharaxin xilka madaxweynaha Soomaaliya haddana kor hore sidaan oo kale waxa uu waayay xilkii xildhibaannimo oo uu ka rajeynayay inuu kasoo helo magaalada Beedhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
si kastaba lama oga ujeedooyinka waaweyn ee ka dambeeyay in xubnahan dhowrka ee iskaga haraan tartanka musharaxnimada madaxweynaha Soomaaliya iyadoo sidoo kale isku soo sharaxeen xubno dhowr oo aan laga filaynin kuwaas oo aanba si weyn uga dhex muuqan saaxadda siyaasadda Soomaaliya guud ahaan daawadayaal anaga inta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawada hadda nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada waa la wararkay warbixinada 24 saacan u baahin aragtidiina halka oo noogu reeba muuqaalkana si share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim daawadayaal wana ku maasantiin daawashadii la socodka warka janalka dalka TV Media